السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada janalkeyga Asmaa Cabdisalaan. Haday tahay daawado markii ugu horeysay aad soo booqato janalkeena, please subscribe ka noo saar iyo like ta. Hadaad horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay. Asxaabteyda sida uga barateen janalkeyga habeen kasta qiso ayaa la soo geliyaa. Caawa qisadeenu waxay ku socotaa gabar la yiraahdo Nadia Murad waxay dhalatay 1993 magaalo yar oo la yiraahdo Kojo ee ku taala gobolka Sinjar oo dhaca galbeedka Ciraaq. Magaaladan ayaa waxaa jooga dad haysta diinta la dhaho Al-Izidiyya, wayna joogeen ilaa xilligii Saddam iyo ka horba. Marka qisadeenu waxay ku socotaa meeshan. Gabadhan la yiraahdo Nadia waxay ahayd gabar aad u da'yar oo aabaheed aad u jecel yahay. Reerkeeduna ay iska yihiin reer maaragta gobol yar degan oo maaragta iska xogaa danyar ah oo maasha Allah ya oo laakiin nolol maalmeedkooda iyo noloshooda hela. Nadia markii waxay ahayd gabar yar oo maaragta wax barata oo maasha Allah hami leh oo inay maaragta shaqeysato oo wax barato oo maaragta koofeerka barato oo maaragta meel burkiyeer ah furato ayay hamigeedu ahayd. Gabar yar oo aad u hami dheer oo maaragta wax barasho jecel ayay ahayd Nadia. Dadka meeshaas degan oo aan hadda soo sheegnay Al-Izidiyya diinta la yiraahdo haysta ayaa dhaqankooda wuxuu ahaa inaysan diintooda qof kala soo gelin ayaguna ay maaragta qofna uusan ka bixin. Dadkana ma guursadaan, dadka kale ma guursadaan, ayaga uunba is guursada. Dad iska saas ayay ahaayeen. Adugu Nadia waxaa dhacday aabaheed wuxuu lahaa hooyadeed waxay u dhashay 8 wiil iyo 3 gabdhood ayay ahaayeen. Waxaa dhacday aabaheed Nadia inuu dhintay 2003 ayuu aabaheed dhintay. Aabaheed markuu dhintay waxaa dhacday in wiilashooda waaweyn maaragta ay shaqooyin iska raadsadaan si maaragta reerka masruufkiisii ay u dabaraan oo maaragta nolosha u sii socoto. Adugu wiilashii waxay iska heleen shaqooyin waardiyaal iyo waxaas aab iska heleen. Waxay ka soo qaataan mushaarna waxay u keeni jireen hooyadoodna waxay iska ahayd islaan iska shaqeysata oo cajiinka maaragta dubta oo micnihii rootiga yacni magaalada ay degan yihiin siisa oo rootiga dadka u sameysa ayay ahaayeen. Adugu reer waxay iska ahaayeen maasha Allah is caawiye oo kulligood iska shaqeysta ayay ahaayeen. Adugu reerka noloshooda iska caadi ayay ahayd maasha Allah. Maamadu waxay aruurisay adugu lacag baytay aruurisay ayay maamadu waxay sameysay inay soo iibiso xoolo ari ah oo ilaa 100 gaariya inay soo iibiso kadibna ay u dhiibto nin ari raaca ah ari jirimiyaal dhahaa ari raaca ah inay u dhiibto oo diishaan la yiraahdo oo maaragta mushaar iyo lacag lagu siiyo ayay maamadu arintaas ayay sameysay. Adugu ninkaas ayaa xoolaha ari u raaci jiray muxuu ahaa lacagna lagu siin jiray. Adugu waxaa dhacday reerku markii xaaladdu halka iska marisay 2014kii markii ahayd in maaragta la waayo 2 nin oo maaragta oo beeraley ah oo magaalada dadka degan ka mid ah in la waayo iyo neef amal muxuu ahaa xoolo ay haysteen oo neef yar ay haysteen iyo 2 nin in maaragta la isla waayo ayaa dhacday. Kadibna dadkii meesha deganaa ayaa is weydiiyay ninka maaragta oo meesha ugaasku ahoo qaryadooda ninka ugu sareeya meesha oo dadku ay u tagaan ayaa loo tagay waxaa la yiraahday nimankaas ayaa la laayahay. Adugu wuxuu yiri arintaas waa baaraynaa waan ogaanaynaa. Waxaa laga yaabaa buu yiri deriskeena waxaa ah magaalo yar oo maaragta dad muslimiin ay degan yihiin. Waxaa laga yaabaa dadkaas inay u galeen waa soo ogaanaynaa. Adugu waxaa dhacday in la aado meeshii oo nimankiina la soo waayo. Kadib muddo kadib waxaa iska yimid 2 nin oo socdo ayay yimaadeen waxayna sheegeen in qolo jamaaco
koox ay maaragta xareysteen oo afduubnaayeen oo halkaa lagu haystay oo adugu qisadii ayay ka sheekeeyeen. adugu nimankii waxay dhaheen arrintaas ayaa nagu dhacday wayna ka sheekeeyeen qisadii ku dhacday inay niman aysan garanayn afduubeen. adugu muddo yar kadib waxaa dhacday Nadia reerka faamilkeedii ninkii dhammaa oo u raaci jiray ariga oo hooyadood ariga u dhiibtay inuu u raaco in maaragta ninkaas la afduubtay oo la waayay. ninkii muxuu ahaa waa la afduubtay. adugu muddo yar kadib dadkan dad iska masaakiin oo maaragta iska noolo dhib qabin ayay ahaayeen. muddo yar kadib magaaladoodii waxaa soo galay nimankii la oran jiray Daacish ayaa soo galay magaaladooda. waxayna maaragta ay weydiiyeen dadka magaalada degan oo ay ka qaadeen hubkii dadku haysteen haddii aan la qoriyo wax walba ay ahaan lahayn dadka magaalada degan ayay dhaheen soo dhiiba oo ay ka qaadeen. adugu markii hubkii iyo wax walba laga qaaday dadkan masaakiinta ah meesha iska deganaa ayaa waxay 3 maalmood kadib ayay ku soo noqdeen nimankaas. waxayna weydiiyeen oo ay dhaheen 2 arrin ayay dooraysiiyeen mid soo gala. waxay dhaheen inaad maaragta dad gaala ah ayaa tihiin oo soo muslintaan anaga gaala idinka aaminsanahay inaad tihiin inaad dad gaala baa tihiin aad soo muslintaan iyo inaad aadaan maaragta buur hebel buur ay magac ku sheegeen waa inaad buurtaa tagtaan ama inaad soo muslintaan ay 2 arrin ayay dooraysiiyeen dadkii meesha joogay. marka dadkii meesha joogay dadkii 2 u qaybsameen dadna waa dad iska masaakiin oo waxay dhaheen horta anagu muxuu ahaa dad ma nihin aad maaragta hadda waxa aaminsan tihiin la qaadanaya laakiin dadka qayb ka mid ah way raaceen oo waxay buurtii ay iska aadeen. laakiin maaragta Nadia faamilkeeda iyo dad kale u dhawaa iyo group kale ayaa waxay diideen inay maaragta xaggan aadaan muxuu ayagana maaragta mabda iyo wax aaminsan yihiin ee la qaataan. adugu waxaa lagu yiri soo baxa waan la kaxeynaya ayaa lagu yiri. Nadia hooyadeed waxay ku tiri carruurta dhan waxay ku tiri dib ugu noqdo qof kasta tu armaajadiisii gurigiisa dib ugu noqdo. 5 surweel 2 jaakadood cabaayado gabdhaha waxay tiri cabaayado 5 ah soo xirta wax walba oo gurigiina yaal dhar ah soo xirta ayay ku tiraahdo qof kasta dharkiisa dhan ha soo xirto. adugu sidii ayaa lagu soo kaxeeyay bas baa lagu soo guray dadkii dhan oo lagu soo waday meel loo wada maysi garanayn umadan. adugu waxaa dhacday in la keeno meel maaragta dadkii ayagoo dhan oo basaska lagu soo guray intii diiday in lagu soo guray basaska oo maaragta yiri xaggan uma socono xagga uma socono ayaa basas lagu soo guray waliba si xoog ah khasab ah dad hubeysan ayaa wada oo ka awood badan oo ka xoog badan ayaa gaariga ba amarka soo siiyo wada. adugu waxay sameeyeen nimankii adugu wixii nin ahaayo marka tay meel geeyeen wixii nin ahaa oo meeshaas awood lahaana waa dileen. Nadia maalinkaas waxaa laga dilay 6 wiil oo hooyadeed aabaheed dhaleen 2 ka mid ah 2na way 6daas way dhinteen 2 ka mid ahna way dhaawacmeen oo iyagu dhaawacay isqariyeen oo wax dhinta iska dhigeen saas ayaa looga tagay saas ay 2da wiil ugu badbaaday. intii kala ragii dhan waa la laayay intoodii dumarkii iyo ciyaalkii ayay bay u taliyeen oo maaragta meel geysteen. adugu maadaama ragiina ay dileen intii dumarkaayo soo hartayna waxay dhaheen waa ina isqaybisaan wixii maaragta 9 jir gabdhaha wixii ka weyn ilaa intii ka weyn oo gabar ahna dhinaca u baxaan wixii xaasas ah oo ciyaal haystana dhinaca u baxaan wixii dumar waaweyn ahna dhinaca u baxaan ayay dhaheen saas u kala qaybiyeen. adugu Nadia hooyadu waa kala qaybsameen. Nadia waxaa dhacday gabar yar oo maaragta walaasheeda oo waxay tiraahday aniga oo iyada ka yar oo 15 jir meelahaas camala. Nadia markaas iyada 12 sano jirta
gabadha yartaa waxay qabsatay ilmo yar oo meeshii taagan bitay qabsatay waxay tiraahday anigu xaas ayaan ahay xagga u bax baa la yiri hooyada wixii dumar waaweynaayo maamooyinka waaweyn ahaan dhinac ayaa loo leexiyey adugu nimankaas saas ayay sameeyeen gabadhii naadiya ahayna waxay sameeyeen muxuu ahaa iyo gabdho yaryar ay ku jirtana dhinac ayaa loo saaray adugu dumarkii waaweynaa meeshii ayay uga tageen gabdhihii yararka ahaa oo weliba walaalkeed gabar yar u dhalay ayaa nasiib u yeelatay in lala soo qaado naadiya waa lala soo qaaday intoodaas meel ayaa la geeyey meel baa saas loogu tuuray waa lagu soo xiray meeshii ilaahay amarkii waxay ku arkeen gabadhaas oo haysata ilmo yaryara haysata 2 ilmood yaryara waxay ku dhaheen naadiya waxay tiri abaay meeshan maxaad ka haysaa waxay tiri aniga waxaan meeshan saa usoo gasheen waaye ma fakan kartaan oo waxay tiraahday waxaana la keenay suuqa lagu kala iibsado dadka baana la keenay gabdhaha lagu kala iibsado micnihii suuqa gabdhaha dhalinyarada lagu iibsado ayaana la keenay oo waxay dhaheen adiga maxaa lagu iibsan waaye waxay dhaheen aniga ilmo yar ayaa nuujinaya 2 bilood markuu gaaro ilmaha yarka ayaa la iibinayaa aniga ilmeyga xataa waana la kalkaxaynayaa qof baa ku dhiibaya sidaas ayaa lagu iibinayaa because dadka waxay aaminsan yihiin inaad adiga maaragtay qaniimo tahay adugu meeshii ay naadiya waxay tiri way naxday ma naadiya ayadii gabadh yarta ahaydoo walaalkeed dhalay way isla micnihii maaragtaa way isla joogeen kadib waxaa dhacday in maaragtaa la yiraahday habeenkii waxay gabadhii oo ilmaha yarka haysatay daal dartiis iyo naxdin ayay garabkeeda ayay saas kolatay madax u saaratay ay naadiya gamaaday albaabka ayaa lagu soo qaraacay waxaa la yiraahday gabdho ma maqlisiin ayagoo badan dee soo qubaystaa la yiraahdo soo labista soo baxa suuqii ayaa la geeyey suuqii lagu kala iibsan lahaa ayaa la geeyey naadiya iyo gabdhihii waxaa dhacday in maaragtaa naadiya meeshaas nin aad u qaabdararo fool xuno aad u xoog weyn inuu yiri waa iibsanayaa adugu naadiya way diiday oo waxay tiraahdaa ninkan ma raacay adugu nin meesha taagnaa oo markaas istiri waa nin muxtaram ah ayay tay ku oyday barida waxay tiri adiga ugu yaraan adiga kaxays adaaba lagu qaataay adugu tuu qoslay oo saa u fiirshay ayuu yiri haye asaga ayaa naadiya iibsaday ninkaas kale ninkan Salmaan ayaa la yiraahday ee ka carartay wuxuu ka haystay ninkaas gabadh yarta ahayd oo walaalkeed dhalay adugu sidii ayaa waxaa dhacday in maaragtaa naadiya loo soo waday oo ninkan u soo kaxeeyay oo uu keenay meel ninkaas marka waxay tiri markuu dadka dhex marayay nin muxtaram oo la salaamayo oo maaragtaa si sharaf ah loo salaamayo la qiimeynayo ayuu ahaa saas ayay maaragtaa meeshuu sa u maraba waa la xishmeynaya waa la ixtiraamaya ayay tiri adugu meeshii waxay tiri waa lisoo kaxeeyay guri ayuu keenay gurigii markuu keenay waxaan ku iri bay tiri ii sheeg muxuu ahaa waa ku baryayaa korkayga ha taabanin oo maaragtaa igu soo xadgudbin inta aan cimriga noolahay waa kuu shaqeynayaa adugu ninkii waxay tiri wuxuu geeyey gurigaas weyn oo guri 2 dabaq ah oo meel kasta ee askar iyo ilaalo ka buuxdo ilaaladu aad u badan tahay askartu aad u badan yihiin oo meel kasta ay buuxaan ayaa la geeyey qol baa lagu xiray markii dambe albaabka ayaa waxa igu soo qaraacay bay tiri nin wuxuu ii dhiibay kiis micnihii bac ay ku jiraan alaabtii ayaan furay mise waaba make up iyo waxyaalo la isku qurxiyo iyo maryo gaagaaban waxay tiri haddaan diido inaan waxaa soo xirto micnihii aad baa u baqiyo because waxaan is dhahayay tiri fako in maaragtaa uu dareemo ninkan wax kale adugu dharkii ayaan soo xirtay waan bariyay bay tiri waxaan iri tay hortimid ayay barido waxaan iri bay tiri please igu shaqayso shaqaale ayaan ku noqonay cimriga intaan noolahay laakiin aniga ha igu soo xadgudbin adugu waxay tiri warkaygaas iga muuse dhageysan adugu igu xadgudbay muxuu ahaa uuna maaragtaa ii sheeg waana muxuu ahaa uuna i farax xumeeyey ayay tiri
meeshii ayaan waxay tiri iska qaraacmay. Kadibna qolkii ayaa laygu xiray bay tiri sidaan u xirnaa bay tiri meeshii u joogay ayuu wuxuu igu yiri tiri tu isoo galay Nadia ha isku dayin inaa fakato waa ogtahay buu yiri dhaqanka u yaala magaaladiina iyo dadkaaga u yaala haddii mar ay ku ogaadaan inaad gabar ahayn ayaga oo ani iga carartid buu yiri oo ayaga u tukatid ay ku ogaadaan inaad gabar ahayn waxaa dhacaysa buu yiri in lagu dilo dhaqan ahaana waxay tiri reerkeena dhaqankaas ayay lahaayeen marba haddii gabadha maaragtaa la ogaado inaysan gabar ahayn oo arrintaas ay ku dhacday micnihii waa la dilaa marka waxay tiri wuxuu yiraahday hadda waa lagu dilayaa la soco hadda ani iga carartid adigu waxay tiri hana isku dayin buu yiri inaa fakatid oo carartid micnihii ciqaabtu way kugu sii badanaysaa aduu waxay tiri maalmaha ka mid ayaa waxaa dhacday bay tiri marti inuu guriga keenay martidii ayaa shaax ugu kariyay oo u soo dhaweeyay waxaa dhacday bay tiri martidii marka hore intii kooda hore horta markii uu ayada soo gaday oo wuxuu u geeyay nin buu u geeyay kooda hore intuusu guriga imaanba sheekada waan soo ilaaway intuusu guriga imaanba nin ayuu u geeyay meel qaadi ah sawir baa laga qaaday uu meeshaas kusoo maaragtaa muxuu ahaa ii sheeg uu yiraahday magacayga ha lagu qoro aniga magacayga ha lagu qoro weliba waxaan iraahday bay tiraahday haddaa islaamo ka waran oo macnihii aad waxa aaminsan tahay ana aan qaato ka waran diinta aaminsan haddaan qaato adugu waxaa la yiri meeshii bay dheheen diinta ku qaado oo 2 markhaati ah sameeyeen anigana ha laygu qoro ayuu yiri marka gurigiisa ayay u joogtaa oo micnihii xaas ahaan camal ayay ugu joogtaa guriga aduu waxaa dhacday Nadia inay maaragtaa ii sheeg dadkii maaragtaa ilaaladii iyo ay meesha maalinka habeenka ka kala yarayd marti guriga joogtay Janice ayay heshay inay ku baxdo markay dabaqa koowaad marayso oo isleedahay cidna kuma jeedo ayaa qori madaxa looga qabtay adigu ninkii uu soo celiyay muxuu ahaa arrinteediina way fashilmatay inay cararto waxaa dhacday inuu ku yiri Nadia muxuu ahaa Nadia maadaama aad ka baxday ii sheeg ballantii iyo wixii aan isku ogeyn yaa waxaa sameynayaa buu yiraahday anigana ii sheeg inaan maaragtaa waxaan asxaabteyda ah oo guriga jooga waxaan askara aan kuugu fasaxo oo tagtu iqaawiyay bay tiri oo dharka dhan iga dhigay inuu dhaho micnihii idinkana maaragtaa dee waa kaas qoftaas saartan ka yeela aduu waxay tiri waa iska murugooday dhibkaas ayaa isoo gaaray kadibna waxaa dhacday bay tiraahday inuu iga sii gaday nin kale ayuu iga sii gaday ninkii kale nin iska maskiin ahaa oo gurigiisa ilaalo badan lahayn aduu ninkii markuu gatay gurigiisa liigeeyay ayaa waxaa dhacday bay tiri markaan in yar joogay bay tiri ii sheeg muxuu ahaa muddo yar oo aan joogay ayaan maalin fursad waxaan ku helay tiri inaan gurigiisa ka baxsado askartii iyo wax ilaalinaya malahan gurigiisa waa kasoo fakaday ayay tiri si tartiib ah ayaan uga fakaday bay tiraahday haddii waxay tiri aan maaragta albaabka hore ka baxo waxaan ka baqay ninkan naag umaysa joogin in la ogaado inaan aniga ahay qof lasoo afduubtay ileen dadkan dhaqankaas ayay leeyihiin in markaas laysoo dabagala ayaan ka baqay ayay tiri marka waxaan sameeyay bay tiri oo laysoo qabto waxaan sameeyay tiraahday albaabka gadaale ayaan ka baxay waan cararay tiri intaan carari karay saa u orday ayay tiri ayaa waxaan meel cidlo ah doon cidlo ugu ordayay oo meelba meel dadkan uga dhuumanayay ayaa markii dambe waxaan gaaray bay tiri meel anoo daalan oo maaragta aad u rafaaday meel gobol kale tagay bay tiri magaalo kale magaaladii ayaan waxaan arkay tirta saa u fiirfiirshay inay tahay magaalo xoogaa dadku aysan hubaysnayn oo dhib ka jirin dad maaragta nolol maalmeedkooda iskaga jira adugu reer ayaa markii dambe isku dhiibay bay tiri oo iraahday gabar saas ayaan ahay qisadeeda uga sheekeeyay please i caawiya reer aad u fiican ayay ahaayeen soo dhawow ayay dhaheen meel bay seexiyeen i fariisiyeen cunta i siiyeen dharba i siiyeen adugu maasha Allah anoo ka baqay waliba amir reerkaana ku jaajuusaan oo ku qabtaan nimankii lagugu celiyaa ayaa reerkii waxay ii noqdeen bet reer fiican oo maasha Allah
adugu waxay dhaheen macquul maaha inaad sidaan ku baxdid oo adduunka ku martid ma ku bixi kartid magaaladan iyo meelna ma gaari kartid waa in lagu sameeyaa sharci bug ah adugu waxay tiri sharci bug ah ayaa lii sameeyey Nadia sharciga bugta ahaa bay tiri magac waxaa layga dhigay tiri Sawsan ayaa magac layga dhigay adugu waxaa lay baray bay tiri in anu kurdiyad waxaan aqaanay tiri luqadda kurdiga luqad carabiya ayaa lay fahansiiyey adugu xoogaa waa magacayga iyo waxyaasaas oo kale ayaa lay baray adugu reer aad u fiican ayay ahaayeen wiilkooda ayay igu dareen bay tiri Cumar la yiraahdo oo la yiri gabadhan wad ilaa ay Mosul magaaladeedii ka tagto meeshii areadii ay deganaayeen Mosul iyo ilaa ay ka tagto adugu wiilkii ayaa i waday checkpointiga ugu horeeyay ayaana la baaray waa la weydiiyey waa ka jawaabay su'aalihii anoo luqadda waliba aad lahjadayda la fahmayo haddana ilaahay ayaa iga indhasaabay aduu waxay tiri midii labaad ayaan marnay sidii ayaana ku gudubnay waxaa dhacday tiraahday Mosul markaan geli rabnay in maaragtaa ay nala arkay oo micnihii nin uu naga qaaday dukumentigii uu dhahay ma baxaysiin kadibna oo ma bixi kartaan ayuu yiraahday nama uusan garan laakiin waxaana lagu yiri safarkeena intaas ayuu ma gudbi kartaan magaaladan ma gali kartaan aduu Cumar ayaa wiilkii Cumar ahaa oo maasha Allah ay caawiyay ayaa wuxuu yiraahday ayay tiri ii sheeg muxuu ahaa aniga hebel ayaa lay dhalay marka waa inaad naga leexataan adugu waxaa la yiri bay tiri way diideen kadibna waxaa la yiri adiga ku fasaxayna ayaa la yiri ma wuxuu yiraahday gabadha ma ka tagi karo aduu markii dambe wuxuu yiri Nadia waa ku qasban tahay nimanka inay qasadaad u sheegtid si aan uga gudubno oo ay ku caawiyaan adugu markii dambe waxay ninka qaad gudaha ku jiray u tagtay waxay barida waxay dhibkaas ay haysta gabar saas u dhacday baahay please waxay tiraahday markaasaan meeshan ay dhaafo walaalahay iyo dadkayga magaaladan jooga marka waxay tiri dadkayga u tagaya wiilal walaalahay ay meeshan joogan tagaya marka labadii wiil waxa weeye soo badbaaday ayaa meeshii jooga adugu way fasaxeen markii dambe waxay dheen shardi uga dhigeen inay cajalka duubaan oo cajalka iyadu ay ku qaranayso wax walba ay ka sheegto hadii bari ka maalin waxa u fasaxdeen la dhaho si cajalka u shidna ayay dhaheen adugu cajalkii ayay maaragtaa duubeen oo ay ka duubeen kaamiradii waxay kaloo ku qasbeen Cumar inay duubaan asagana Cumar laakiin waxay tiraahday please waa idin bariyaa wajiga u qariya aduu Cumar wajiga ayaa loo qariyay wiilkii dhalinyarada ahaa oo caawiyay adugu sidii maaragtaa ayay ku gudbeen qoftan walaalaheedii dadkeeda kula kulantay wiilashii walaalaheedii dadkeeda kula kulantay adugu sidii ayay gabadhaas ku soo badbaaday waxaa dhacday in maaragtaa markiiba ay maaragtaa ii sheeg Cumarna oo meeshii uga soo tagtay ayadiina ay muxuu ahaa isla markiiba ay dadkeedii markay u tagtay ay muxuu ahaa raadisay maaragtaa meel ay maaragtaa laaji wax u qaxdo oo dadkeedii ilmi gabdhihii group meesha joogay iyo way wada kaxaysay adugu meel ayay iska dhiibeen oo maaragtaa mukhaymo ah micnihii tandooyin taalo qaxooti ay aadeen way is dhiibeen qisadeeda ayay ka sheekaysay dadkii dhan waa iska ooyeen waa iska ilmeeyeen marka waxaa joogtay magaaladaas ay tagaysay eedadeed baa wareysatay waxay ku tiri ii waran bas waxay soo xasuusatay ninkii hadalkii ku yiri haddii ku ogaadaan inaadan gabar ahayn reerkiina way ku dilayaan aduu intaasay qarisay way qarisay inay maaragtaa ii sheeg arrinteeda xaaladeeda iyada way qarisay arrintii kale dhan ayay ka sheekaysay kadibna waxaa dhacday in maaragtaa ay qolo oo maaragtaa xuquuq insaanka u dooday inay isku dhiibtay ee qisadeeda ka sheekaysay kadibna waa la qaaday gabdhihii kalena way kaxaysay oo walaalaheed ahaa intii meesha joogtay adugu intay magaalada joogtay ayay waxay ogaatay in maaragtaa wiilkii yarka labada wiil oo walaalaheed ahaa midkii soo badbaaday labadii soo badbaaday mid ka mid oo magaalada la joogo soo dhow iyada ay ku aragtay kii kale oo yaraa inuu qoladii raacay oo maaragtaa mabdaoodii ay ka dhaadhiciyeen oo qoriga qaatay ayay ogaatay midkan weynna oo uu yiraahdo anu kama tagi karo meeshaan fahmi haddaan
anna aan tago familkeena halkaas ayuu ku dhamaanaya oo ku dabar go'aya magaaladeena kama tegayo. waxaa dhacday in ay ogaatay Nadia markii halkaa marayso oo ay intays qaxooti isku dhiibin in hooyadeed la dilay iyo maamooyinkii waaweynayo dhan in maaragtaa la dilay oo meeshii ay ku dhinteen oo la yiraahdo wax ay faa'iideynayaan ma lahan, gabdho yaryar ma ahan, oo maamooyinkii dhan meesha lagu laayay ayay ogaatay. kadibna way is dhiibtay oo waxaa loo qaatay gabadhan waxaa loo qaaday Jarmalka. kadibna sidii ayayna maaragtaa Jarmalka ku gashay ayada iyo gabar walaasheeda. kadib waxaa dhacday in maaragtaa muxuu ahaa ninkii Cumar ahaana asna markii walaalkeed xataa gabadhan Nadia wuxuu ku yiraahday seeba nimankii ballanta u qaaday inay fiidiyowgii cajalka ay ka duubeen ay soo dayn waa soo daayeen. saxaafadda caalamka ayay u dhiibeen carabti dhan hal mar ayaa waxa isqabsatay gabadha qisadeeda oo iyadoo maaragtaa fiidiyowgeedii ayay soo galiyeen, wiilkiina way soo galiyeen. marka waxaa dhacday wiilkii in maaragtaa dabagal lagu sameeyay oo meel istaaga waayay oo la raadin jiray oo xataa familkiisii hooyadiisii aabihiisii dadkiisii tan la xirxiray oo la qabtay. asxaabay Nadia sidaas ayay Jarmalka ku aaday oo ku heshay dad caawiye iyo ummad caawisa ku heshay oo hay'adaha adduunka caalamiga isku dhiibtay. adigu markiiba waxay qortay kitaab bay qortay ee uga sheekeynayso qisadeeda Nadia. kitaabkaas oo u bixisay al-fataatul akhiira ayay u bixisay. kitaabkaasna waxaa ka helaysiin Google-ka ayaa ka helaysiin adigu $10 ayaa lagu iibinayaa. adigu qisada Nadia halkaas ayay ku dhamaatay. markay Jarmalka saa u tagtayna waxay guursatay ninkaas oo la dhaho Caabid Shamsuddin. adigu ninkii ugu muhiimsan oo qisada ayba maaragtaa actor-ka qisada ahaa ninkii caawiyay ahaa oo Cumar Cabdijabbaar la dhahayna adigu dhib badan ayuu la kulmay markuu caawitaanka uu caawiyay Nadia darteed ayuu dhib badan la kulmay. familkiisa aabihiis, hooyadiis, walaashiis iyo ninkeeda waa la dhibay oo qoladaas ayaa xiratay. adigu markii dambana la soo deynayay aabihiis waxaa lagu shardi looga dhigay inuu wiilkiisa baraa'a ka qaato oo dhaho ii sheeg muxuu ahaa iclaamiyo macnihii kor sheego inuu wiilkiisa waxba ka gelin caawa hadduu bartaa ka hor yimaado uu wiilkiisa uusan ahayn. adigu wiilkiisu baraa'a ka qaatay museyga. sidaas ayaana xabsiga looga sii daayay familka Cumar oo dhan. adigu Cumar markiiba uu cararay meel kasta waa la daba dhigtay ummadana ceyrsanaysay. adigu markii dambana sidaas ayuu asagana qaxootiga ku galay oo Jarmalka u tagay. Cumar markuu Jarmalka tagay asagoo familkiisii iyo reerkiisii dhibka ku dhacday weligiis dib dambe lama midoobayo oo sidaas ay reerkiisa ku kala go'een. asagana wadan qurbo ah ayuu kaligiis ku nool yahay asagoo famil iyo dad toona haysan. marka arrintaasna waa caawitaanka uu caawiyay gabadhaas miskiinta ee Nadia. marka sidaas ayayna maaragtaa qisada ku dhamaatay Nadia. qolooyinkan magaca sheeganaya oo gabadhaas u dhibaateeyay oo dadka u dhibaateynayna magac islaam ayay maaragtaa ku hoos gabanayaan. islaamku waa diinur raxma, waa diin maaragtaa cajiib ah oo maaragtaa raxmad iyo naxariis ah. diin xataa qasab ah ma ahan. marka magaca islaamka ayay maaragtaa sumcada islaamka ayay xumeynayaan qoladaasna. marka ilaahay ayaa sharkooda iyo dhibkooda ka magan galnay. qisada hadaa ka heshay dhageyste maaragtaa commentiga noogu reeb wixii fikirkaaga ah. aad ayaa u mahadsantahay inta aad maaragtaa aad chance na siisay aan qisada aad kugula wadaagnay. inta qisada lamida ku kulmayna waxaan idinkaga tegayaa walaashiin.